dowladnimadu macnaheedu waxa ay tahay inaad ogtahay waxa aad rabto meesha aad u socoto sida aad ku tagi lahayd daacad ay ka tahay aad u soo kacdo waqti aad geliso waxaan rabaa marka dhalinyaroy dalkan hadda aan joogno xoogga uu haysto waa idinka maskaxda uu haysto waa idinka dhaqaalaha uu haysto waa idinka waxa uu ku faanayo ama cidda uu la tartamayo oo raba adduunyada inuu la tartamo waa idinka idinkuna waxa laga yaabaa wali dhaqankiinu inuu ku mashquulsan yahay maanta Facebook maxaa lagu soo qoray siyaasi hebel muxuu yiri qabiil hebel ku duulay qarnigii 21aad ayaa lagu jiraa qarnigii waxa lagu jiraa aadan noolaan karin haddii aadan aqoon lahayn aad u baahan tahay si aad u noolaato inaad xirfad leedahay si aqoonta dadka Soomaaliyeed loo dhiso aan ula tartarno bulshada adduunka waa inaan leenahay iskuulo iyo jaamacado soo saara dad Soomaaliyeed oo aan ahayn iskuulo iyo jaamacado laga soo baxo laakiin kuwa ka soo baxa ay la cilmiyiin ama ka cilmi badan yihiin kuwa Kenya ama Jarmalka ama Faransiiska ka soo baxa macnaheedu waxay tahay inaan wadankeena ka shaqeyno si aan uga shaqeyno marka waa inaan wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabanaa oo musuqmaasuqa la dagaalnaa oo kobcinaa dhaqaalaha oo adduunyada ilaheeda dhaqaaluhu ay dib noo aaminaan si dibna la kugu aamino waa inaan xanuun marnaa xanuunka cidda maraysa oo adkaysanaysa waa cidda rabta inay mustaqbal yeelato cidda mustaqbalka lehna waa idinka waa idin mahad celinayaa inaad aaminteen inaad dalkiina leedihiin waa idinku dhaliilayaa weli inaanay muuqan shaqo dhab ah oo iga dhaadhicisa inaad aqbasheen inaad qabsatiin hoggaanka dalkiina weli waxaad u dhaqmaysaan qof gurigooda jooga oo marti ka ah weli waxaad u dhaqmaysaan inaad xaaladda mustaqbalka dhexdhexaad ka tihiin haddii aad u dhaqmayso inaad mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo carruurtaada dhexdhexaad ka tahay macnaheedu waxay tahay weli baadan fahmin wixii aan ka hadalnay sanadka hore marka haddaad rabtaan sanadka dambe haddii ilaa yiraahdo inaad isoo casuumtaan waa inaad igu soo casuumtaan wax ka weyn ra'iisul wasaare oo sanadka hore hadalkaada waa maqalnay inaan anagu milkiilayaasha nahay caddeyn baan rabaa inaad tustaan sanadka soo socda haddii ay sidaas tahay marka waxaa muhiim ah inaan isla garanno waxyaabo yaryar oo kala duwan kow haddii aan rabno inaan wax ka bedelno dalka xaaladda uu ku sugan yahay waxaan u baahannahay inaan wax ka bedelno xaaladda ay dadku ku sugan yihiin soo islama garan intaas si xaaladda dadku ay ku sugan yihiin aan wax uga bedelno waa inaan isla fahamnaa xaaladda dadku ay ku sugan yihiin sida ay tahay si aan isula fahamno waa inaan fahamnaa ama aan ka fikirnaa sababta keentay dadku inay galaan xaaladda ay ku sugan yihiin waxaad u baahan tihiin markaa fadhidaan jaamacadaha markaad doodaysaan inaad ka fikirtaan maxaan ku mutaysanay haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed inaan ku jirno xaaladda hadda aan ku jirno dhaqanka hadda aan leenahay oo aan u fahamsannahay dowladnimada sida uu naga noqday xaalad noocee ah ayaa na soo gelisay marka waxaan rabnaa inaan ogaano dal waliba ummad waliba waxay yeelataa qaab dhaqameed ay ku noolaato dowladnimadeedana ay ku horumarayso haddii qaab dhaqameedkaas dowladnimada lagu dhisaayo marka qaab fikirkaasi uu naga noqdo qaab fikir khaldan waxaa dhibaato noqonaysa inaan gaarno meesha aan rabno inaan gaarno su'aalo adag inaan isweydiino waayo marka
su'aalo adag inaan isweydiino oo ay tahay maxaa keenay dalka nagu dhegan oo Kenya inuu taagan yahay meesha uu taagan yahay maxaa keenay shalayto in madaxweynaheena loogu yeeray dalka Djibouti asaga iyo dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika oo dalka walaalaheena oo sharafta leh oo Djibouti ay soo bandhigeen inay billions of dollars ay geliyeen wax la yiraahdo free zone oo ay rabeen inay tusaan madaxweynayaasha Afrika oo Paul Kagame ugu horeeyay madaxweynaheena uu ku jiray madaxweynaha Suudaan uu ku jiray wasaaraha Itoobiya ku jiray maxaa keenay in dalalka deriskeena ah ay cilmi dhoofinayaan ma aha badeeco inay dadkooda intay wax baraan ay dunida u dhoofinayaan maxaa keena arday walba ay soo saaraan inuu kuweena ka quality badan yahay shaqaalaha ay haystaan inay kuweena dhaamaan dhaqaalahoodu ay ku kunjibaarmaan ama ku balaayin jibaarmaan iyadoo xoolaha ay haystaan annaga kuwa aan haysan ay ka yar yihiin maxaa keenay in qof walba dawladaha deriska markuu diyaarad raaco oo dunida tagaayo loola dhaqmo si idinka duwan oo idinka sida leedina dhaqmo annaga sida noola dhaqmo ay ka duwan tahay kuwa kale maxaa keenay in dhalinyaradeenu ay doomaha raacaan ay badda ku dhacaan ama aan ka soo daldalno jeelash in laga soo celiyo kuwooduna aanay meel aadin intooda badan ay joogaan su'aalaha la rabo in la isweydiiyo xaaladda aan idin sheegayo oo aad rabtaan inaad isweydiisaan haddaad rabtaan kuwii mustaqbalka dalkan xukumi lahaa inaad isweydiisaan ويمو dalka gudihiisa maxaa keenay inaan dhexdhexaad ka nahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed maxaa keenay in inteena badan aan qof caadi ah noqono qof caadi ma noqon kartin qof caadi ah waxa noqon kara qof dalkiisa hore u maray qof caadi ah waxay tahay qof subaxii soo kaca soo shaqaysta seexda yaad ku haleynaysaa dalka intiisa kale hadaad qof caadi ah noqoto maxaa keenay inaan aqbalno inaan fiirsano in caruurteena ama hooyooyinkeena ama aabaheen jidadka markii lagu laayo kaliya aan iraado caaw qof baa lagu dilay wadada Makka al-Mukarrama ama Kaaraan qof ma aha hooyo Soomaaliyeed oo 4 caruur ah ayaa la dilay wiil jaamacad ka soo baxay oo 20 ama 30 ama 40 sano haduu noolaa lahay dalkan dhisi lahaa ayaa la dilay saamiyihii Soomaaliya ugu horeyn lahaa cirka tagi lahaa ayaa la dilay dhakhtarkii mustaqbalka Soomaaliya ugu wanaagsanaan lahaa ayaa la dilay maxaan sidaas u dhihi weyn maxaan u aqbalnaa markaan u jeedno dawladnimadeena oo dariiqa sax ah ku socoto qolayar inay ka leexinayso maxaan u aqbalnaa idinku inaad tihiin qoladii loo isticmaali lahaa inay leexiso idinku intaad ahaan lahaydeen milkiilayaashii qaranka maalinba waxa la idin keenaa shay laga hadlo shaygaas aad wax ku darsataan waxaad qayb ka noqoteen dhaqanka fadhi ku dirirka oo aan ahayn dhaqanka shaqeeya waxaad qayb ka tihiin dhaqankii la soo dhaafay oo la rabo in la bedelo dawladnimadu waxay tahay waxaanaad soo bandhigteen inaad ka dhabaysaan dawladnimadu waxay tahay su'aalaha aad adagoon isweydiinayno inaad ka jawaabtaan dawladnimadu waxay tahay gudoomiye ku-xigeenku sida uu sheegay waxaan la dhisay idinka la idin dhisay aniga iyo isaga iyo Qadiijo waan ka soconaa haddii lagu ciyaarayo idinka la idinkaga ciyaaraya hadday hagaagaan idinkay idin hagaagayaan hadafka dawladnimada marka haddii aad ka shaqaynaysaan waa la idin tilmaamayo waa fudud yahay
كو وعايتهاي إن عدة ملكيلياش الدلك كأه عدكو ذا تلدو ذا أي نقطة مد لقو خصبين هاي إلا دقيستو سيلو دقيستو وإن ملكيلياش أي فهمان مرك هورا إني ملكيلياليهين مرك أي فهمان كدبنا سيدا أي لهانشها وقد أبين لهايين إني فهمان معناه دو عيتاي وإن دو أبابلنتين سقر النماء وأنا دو أبابلنتين سي مستقبل كوسا ليس وأنا دو أبابلنتين سي أد مدحوين فرماجي وديه كرتان طريق الدلك أتكوه قامريسو وخلد بدح الليحي وأنا دو أبابلنتين قاب أد وزير دا دولة دا كجراء أدول حساب تمي كرتان سيالكاس لسوق gaara marka waxaan idinku caawinaynaa inaan wadankan u bedelno in qabiilka looga guuro asxaab siyaasadeed in xisbiye la sameeyo in sharci doorasho la sameeyo oo codka idinku aad dhiibataan waxaan ka shaqeynaynaa in awoodii gacanta xoogaa yar ay ku haysatay idinka la idin soo celiyo laakiin waa xanuun ogaada kuwa hadda talada gacanta ku haysta ma yeelayaan idinka idin siiyaan miyaa u maleynaysaan in macna dara la idinku keenayo maya waa inaa hurdada ka kacdaan oo dawladnimo isu abaabushaan muxuu idinkaga dhintay Allah u naxariistaa wiilka dhalinyarada ay degmada wardhigley u qeybinayay dadka masaakiinta Afrika hadii aadan qiimeynaynin noloshiina maxaa dhalinyaro ka tihiin hadii wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalinba la dilaayo iyagoo dawladnimo u adeegaya aad ka soo qaadaan qof dhintay aadan u la xisaabtamaynin haliyay idinka baxay sidee baad rabtaan inaad dalka idinku gacanta ugu dhigtaan وان قبيلك لغو بدلا أصحاب سياسة وان عضدك أي بحيان شعبك صوماليو دورن وان دل كوردن لغا عضيا وان دولة أي حق كنت شعبك صوماليات لكينا وان مدحدا مستقبلك أي كوي مادان مستقبل كرابطان كشعبك صوماليات وان إذنك أود آيالتان سياد أيالتان انت لغا شقين آي شقوين كاس وجيب كيدا لغو جرو وان هرددك توستان الدنيا ذو وحين ولا دقنتاس سيده هرسي كدول بيل والبو أن تجنو وأنا العزية وحنا لو عزية إن أنا نهين دولة وحلو يري نلو مشي قعان كومد الصومالية أنو قارين أنا قعان سنة قعان كانوا مد الصومالية دو قارين إسقويس كأن مرة إنه مركا وأنا بعد اللي يروي إن أنا عاوة مركا لين كوسو عليه ما لقى شقين كره هدي إنديه نحريين ما لقى شقين كره هداتين ويلل إيه قبل عادية ما لقى شقين كره هدياتين ويلل إيه قبل دحات كه مستقبل كومد الصومالية ما لقى شقين كره هداتين كوا ولا دنقارة لأي فيسبوك كهكتان ما لقى شقين كره هديات ليدهين أركتك هوبان وهذا الله هينين أركتفك ما لقى شقين كره هدادا فهميننا صدن سنة نقفلا إن أنا قبيالة دي واحترين ما لقى شقين كره هدي آدن إذن كنا قننا هلية مستقبلكم مدرس وعن ربا إن إذن كالمايو وحول بؤان أودو سي أدوغو نولاتان نولل كوانا أكسنتي أنغو أنكو نولين سي أدوغو بدبادان غحي أنغو أنقلني si aad uga badbaadaan dunida anaga nala ku soo liiday si aad uga badbaadaan qaxootinimada si aad uga badbaadaan qabiilka iyo qabyaaladda si aad uga badbaadaan Soomaaliya laga cararaayo oo u hogaamisaan Soomaaliya loo soo cararaayo si aan idin kugu caawino marka waxaan idin leenahay kala qaada indhaha Ilaahayna idin garab